baasiyo balaayiyo baroon lala ordaayiyo bele iyo dhibaatiyo alla ha kaa badbaadiyo muqdishooy baraariyo baryasamo ku noolow aniga markii aan yaraay waa tiri jiray suugaanta laakiin uma badnayn si dhaba inaan u tiriyo waxay bilaabatay xilligii ay ka dhaceen dagaalada sokeeye ay dalkeena ka dhaceen markaas ayaan bilaabay inaan tiriyo suugaanta waxaana u kalafay duruuftii iyo qabyaaladii la isu dilayay iyo dhibaatadii dalkeena haystay marka waan xasuustaaba gabagii igu horreeyey ee xilliga aan tiriyey oo ka hadlayay qabyaaladda ay Soomaalidu isu dilayso waa dulle qabyaaladdu waa furqiyo daacuun waa cadow difaaciyo dugsi aad ka dhigato kaa dooxa maatada waa nacab dadnimadiyo sharafta kaala diriro ummadaada kugu dira ruuxaan dakana iyo dembi adiga kaa gelin soo dil kugu yidhaahda waa durbaan ibliiso daacadaad u tahayo aad ka daba hablaysaa waa kaan kara duqowdiyo jahli deegta loo suran ummadday la darisana nabadda waa u diiddaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa aakhirana dab naariyo jahannabay ku dalaqsin xaqiiqiyan ma xiiseeyaan dhallinyarada markay la fiiriyo gabayada muusiga ayay aad u jecel yihiin laakiin haddana waxaan isleeyahay waa lagu dhiirigeli karaa sababta lagu dhiirigeli karana waxay tahay haddii dee jaamacadaha iyo dugsiyada iyo duruusta iyo ay ku qaataan aadaad u mahadsan tahay waa ku fikirnay waana samaynay weliba oo hadda markii ugu dambaysay golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa haddii alla ku roon yahay waxay dhalinyarada ku baraarujinayeen in ay suugaanta Soomaalida oo ku salaysan dhaqanka Soomaalida iyo asalkiisa ay u bartaan tobanaan ku baatagoogiya ka go'an tiirka boodada ee timaha ka badan intuu mashruuc tiray laxaadkii iyo isbitaalada markaa tagtaa tacajabaysa hooyo 10 wiil lashaan mid uga taagnayn tacajabayay yey u talin 10ka madaxweyne haddaan iraahdo ka gabyaa oo murtiyahankaahu waxay ka mid yihiin dadka ummadda xushmada ku leh asagoo dhintay ayaa la dhageysanayaa waanadiisii iyo wixii ummadda u sheegay marka dadka gabyaa inay ku guuleystaan haddii alla ku roon xilkaas ummaduna ay qaadato sidaas ayaan u rajaynayaa ummaduna ka faa'iideysa